boqore dhurde tirada Soomaali maaska deyseen walaalo iga jaayil bixiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سو دواده channelkeena Ar Films adiyaad cusub tahay subscribe saar hadii kalena la joogteen like saar inta markaan ka nimaadnay subscribe like share gareysaan barnaamijka channelkana subscribe gareysaan waxaan maanta xagan u soo fadhinay su'aalaha soo weydiiseen walaashay Balqiis ka hor dhici maayo magaceedo saddexan maadaama ay ku jiraan su'aalaha qaar dad soo weydiinay magaceedo saddexan si ay iyagu daawadayaashu ay mudnaanta maadaama iyagu leeyihiin marka iyagu ay maqlaan kabadaan ku dhawaaqi doona insha Allah hadana waxaan u gudagali doonaa su'aalihii ay nooga jawaabi doonto walaashay su'aalahana way farbadnaayeen mana soo wada qaadanin qayban soo qaadanin inta kale insha Allah waxaan rajaynayaa barnaamijka inaan ka soo sameeyo okay qofka ugu horeeya ama su'aasha ugu horeysa soo qabto su'aasha ugu horeysa waa Romeo Ramis official aniga waxay su'aal ma aha laakiin dad waxa jira heerka aad hadda taagan tihiin in ay gaaraan rajaynaya marka maxaad kula talin lahaydeen aniga ayaana kamid ah dadka aan ka hadlayo insha Allah maalin hadalkayga iyo rumoobi doona insha Allah walaalkay Romeo waxaan ku leeyahay ku rumoobi doona dadka heerkan taagan hadda rabo inay soo gaaraan waxaan kula talin lahaa in kulay wax walba dadaal ba lagu gaaraa inay dadaalaan insha Allah Allah hadafkaaga Ilaahay ku rumeeyo aad u mahadsantahay okay aan soo qabto qofka labaad waa qof dumara haldaa Cabdiraxmaan waxa jira assalaamu alaykum walaal waan ku salaamay Balqiis cali magacaygu waa haldaa Cabdiraxiin aniga su'aashaydu waxay tahay waxbarashada heer intee leeg ayaad ka gaadhay heer maad leedahay mise single baad tahay waad maasan tahay walaal Balqiis waxaan leeyahay adaa mudan Balqiis su'aasha jawaabteeda raxmay soo weydiisay haldaa Cabdiraxiin walaasha horta markood aad baad u mahadsan tahay marka labaad waxbarashada jaamacadda gaari laakiin ma dhameysanin reerna milay gabadh baanay walaal aad u mahadsan tahay okay qofka saddexaad Cabdi Maxamuud assalaamu alaykum walaal waa Cabdalle waxaan ku weydiin lahaa magacayga oo saddexan halkaad ku dhalatay heerka waxbarasho reer maad leedahay goorma kugu dhalatay inaad wax jisho heerkeed jeclaan lahayd inaad ka gaadho jilinimada ilaa iyo waxayaan saddex su'aalood oo isdaba yaala oo ugu horeeya magacaaga oo saddexan heerka waxbarashadeed ka gaadhay reer maad leedahay hadana qaab jilin xilmi ku dhalatay heer inta leeg baadana ka gaadhi rabtaa jilinka heer jilin alashan aad jeceshahay ka gaadhay walaalkay Cabdalle aad baad mahadsantahay horta marka koowaad marka labaad waxa ugu horeeyay magacaaga oo saddexan Balqiis cali Axmed baa la yiraahdaa waxbarashada heer la jaamacadeed ka gaar laakiin ma dhameysanin reerna milay sidaan hore soo sheegay gabadh baan ahay talabaadna jileenka ana waxaan arkay in ku dhex jira Ar Films صح waqtiga ma naqaadanin ba qaab jilinkaaga xaqeed alsan jeclaan lahayd inaad ka gaadho heerka ugu dambeysay insha Allah rajaynaya okay qofka kale soo qabto Xamdi Xuseen wiilasha aad wax wada jisho wiilkee kugu dhow ama ay kugu baxda aad baad mahadsantahay horta walaal wiilasheeda ma kala jeceli walaahi kulli way isneeyeen okay qofka xiga soo qabano waa Asad Axmed magacaaga oo saddexan xagaad ku dhalatay dugsigaaga hoose magaciisa cashan dugsiga hoose wax ku soo dhigtay magaciisa wadanka jeclaan lahayd inaad dalxiis u tagtid waa farsaado filaya walaal hadda aad baad mahadsantahay waa ta koobaad halka igu soo magacaaga oo saddexan waxa weeyaan Balqiis cali Axmed xageed ku dhalatay waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho dugsigii hoose aashan xageed ku soo qaadatay dugsiga hoose waxaan ku dhigtay magaalada Jigjiga wadanka jeclaan lahayd inaad dalxiis u tagtid Canada adiga maskatiyaad meelaan dhadhow Canada ayaga doonaya walaayahay qofka xiga soo qabto waa Naciima Cabdi assalaamu alaykum hunna Balqiis su'aal waad ka dhan tahay run ahaantii waan helaa sida dareenka leh عشان كهلا عن هذا صدرين كله هذا حد شيء هرو ساعة otherwise سلام كبيت هنا أوكي قفنا سؤال ما واحد نسوي دي ودي رجلين عشان هذا جو كدي رجلين قربان قبل نعيمة عبدي نعيمة عبد الله شيخ هذه بعد ما تصنتها مركل الله الحمد لله كشرف ترى أنا كقادر راعي
okay NRD channel وعلى هذه اللي قلت لها قف عارف اللي مساك جورسو يد جورسون لي لا إله ها والله مننا جورسدان لعل باب اللي قلوا جورسو كيد جورسون يقدر يقول سؤال شو ما جورسدان بكاس ما قبل ولا الكيد جورسته إنما هذا يدي ويان مننا كمان جورسدان okay نصر سليمان ugu horeen waan salaamay dhamaan kooxda Aar Films waxaan leeyahay waan ka qaadnay salaan kadib kooxda Aar Films aad baan inta hore u socdaa okay walaaladuna soo kale hore u soco walaalay tabatiin dhamaantiin insha Allah inta kadib balqis su'aasha aan weydiinay waxay tahay magaca dhabta ah balqis miya haduu yahayna naanis maad leedahay ولا أدور عليا وأنا سلامي دمانتين حمنا كوحدة Aar Films سلامة وان كاقاني انت انت كريان جوغينا أنا حقودا إنيقا قادنا سؤال بلقيس magacaygu waa Balqiis waxna naasan weli lama bixin aad ma maadsantahay iyaga ku soo bixin ana gala okay qofka xiga soo qabta waa Filsan Deeman walaashay waxaan ku weydiinayaa xilimaad dareentay inaad jili karto film waqtiga ay kugu dhalatay dareenka ama aad istiri waa noqon kartaa xashan jira walaashay Filsan saan hore u soo sheegayba أنا أعرف المسكو دحتير وما نس أركي مركا كدبنا توان أركي بنا تعلانت لا يهسي دا درتي دون سيوطي واحد مركي هوري فكري قصاد عنا هاي أوكي خوك حيان صاقبته والرحمة إسماعيل ما شاء الله هنا وحكم ودين يدر لها يان كوتش على هاي والله حتى مالين دويد أنيقا أوبا صارن أركيسة ayaa gabar ila saarneyd hadashay mise codkaaga bay leedahayba sida aad u hadasho ayaan jeclahay hore u socona macaan waa Raxma Ismaaciil walaashay aad u mahadsantahay okay Xuseen Maxamed wuxuu yiri ma laga yaabaa inaad ka tagto Aar Films maybe anaga ma rabnaa inaad tagto kadaaya way insha Allah ka tag ismalihi okay amal problem ma lagu qabaa may saan hada soo sheegay okay only the top waxayaan ما شاء الله كورك عوي waxaan ku weydiinayaa ma jeceshahay baraanki inaad sameeyso haday tahay ha samee waa favorite team batihin from New York okay magaciisa ma soo raacan laakiin waxa uu qoran only the top asha ma jeceshahay inaad baraanki sameeyso hadaa sameeysina عشان saga ka heleen baraankeeda marka inaad soo sameeyso insha Allah wala soo sameeyna Sweet Ilhan وأنا سلامة Aar Films balqis waxaan ku weydiinayaa xagee ayaad jeceshahay inaad dalxiis u tagto su'aasha labaad xagee ayaad ku dhalatay hore u soo sheegay meeshaan dalxiis ku tagay waa Canada magaalada Muqdisho ku dhashay Samaara Maxamed Xaashi assalaamu calaykum walaashay waxaan ku weydiinayaa dharka midabkee jeceshahay teeda kale xaasma tahay mise gabadh wallahi dharka horta ma kala jecel laakiin hadii la yiraahdo midab dooro casaan kan dooro lahaa leeyman qaba garbana qofka xiga waa Cabtax Yaasiin ma sha Allah way qurux badan tahay balse su'aal hadaan weydiinayo ma la qaba hadaan qiimin jacayl ma leedahay hadaan lahayna inaad sameyso diyaar ma u tahay hadaad diyaar u tahayna nin nooc ah ayaad la sameyn lahayd xiriir waxa hadaad la sameynayso ma is leedahay jacayl farxad ayaad ka helaysaa ma sanid walaal أسأله سفر يقول من ما يلا مركي كوبار هذا ما حسنتها اللي ما قبض واحد عائلة ملي هذا نديار ملي يوم إيهنا سمايا إن شاء الله هذا كتب بنكو تلتشرا أوكي ممكن ما تشترينا سميسيد لكن هذا سميسو جعلك فرحات ما تكيل سمسلا هاي تلا على ما سلا سمس هذا ملي هذا سميسيد جعلك فرحات اسمه اللي بده سمسا هذا يقدر تقول هذا اسمه اللي سمسا لكن على ما كان صقعه إن شاء الله boqore dhurde tirada Soomaali maaska deyseen walaalo iga jahil bixiya may walaal iska manadeen janaalka dirisa Soomaali dirisla waa wiil walaalka naga wada shaqeyn baa naga dhaxaysa ilaa hadana sidii u baan wada shaqeynaa insha Allah wada shaqeynta uma naga dhaxaysa okay waa Abaan Bulshaawi waxa uu yiri magacayga waa Guuleed Bulshaawi
marka koowaad aad ayaan ku salaamayaa waxaan ahay shakhsi filimada aad ugu xidhan una taageera su-aashan weydiinayo waxay tahay heerkee ayaa jeceshahay inaad jilinka ka gaadho balse yaad isleedahay waad ku dayataa ama aad taageertaa waan ku salaamay aad iyo aad baad mahadsantahay waan kaa qaaday salaanta marka koowaad waad ku mahadsantahay taageerahaaga marka labaad su-aasha haddaan kaaga jawaabo ilaa iyo waxaan doonayaa kolley rabitaan baan kusoo biiray heerka ugu dambeeya jilinka laga gaadho insha allah qof aan isleeyahay waad ku dayataana kolley ma jiro okay qofka xiga waa xamse cabdi magacaygu waa xamse jaadu yaa kugu dhiirigeliyay inaad noqoto jila walaa cidna iguma dhiirigelin okay qofka u dambeeya ee su-aashana soo weydiiyey magacaygu waa sacad badri ma jiraa qof nolosha abaal weyn aad u hayso oo aad weligaa iloobeyn aad iyo aad abaal weyn baan u hayaa qofkaan waa hooyada cid kale maaha amar dhar baan ku rajeynaya okay daawadayaal saad ula socoteen su-aalihi aad soo weydiiseen walaasheen balqis cali axmed iyaga magaceeda caadi waan ku dhawaaqi karaa sababtoo dad badan baa soo weydiiya waxaan lahaa ka horreecin dadka balqis cali axmed su-aalaha aad soo weydiiseen intaas ayay ku egyihiin saas ay noo suurtageli weyday inaan soo wada qaadano dhammaan dadkii soo weydiiya su-aalaha oo aad u badnaa dadka aanan soo qaadan waxaan rajaynaynaa inaan kasoo sameyno barnaamij labaad oo ay weliba ay marti ku tahay balqis cali axmed inta aan soo xidhin barnaamijka soo weydii su-aal jilayaasha kooxda art films oo toddobaadkii hal mar ka bixi doona channelka kooxda art films waxaan leeyahay subscribe walaalayaal allah iyo like taniga ilaawna oo commentiga oo sheertana wala raaciyo oo ka daayay masaajidka ciyaarta kowda intaan soo xidhin barnaamijka hadaba balqis ay hal iyo laba maxaad oranaysaa asxaabta waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin taageerayaashana sidoo kale si gaar ah nigu mahad celinayaa halka subscribe-ka naga ilaawina dadka cusubta channel-kana ha ilaawin okay toddobaadkii hal qof ayaan soo qaban doonaa oo kooxda art films kamid ah oo community-giisa soo dhigi doonaa oo barnaamijkan marti ku noqon doona si aad u inaga jawaabo su-aalaha aad soo weydiisaan waxaa lasoo biingarin doonaa commentiga barnaamijkan inaad inagu soo doorataan qofka cashaan laynii soo qaban doono ama in ay nii soo doorto kooxda hal qof insha allah waxaan rajaynayaa inta aan barnaamij lamida ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo iyo subscribe aad u badan aad baad mahadsantihiin